السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، walaalayaal mawduuca aan ka hadlayaa dee waa kaa cinwaanka ku qoran. dad badan baa yaabi doona ciise maxamuud maanta maxaa iyo hore fadhi maxaa isu keenay. waa arrin aad baa loola yaaba runtii. shaki kuma jiro website-ka hore fadhi iyo kuwa haystaba waa kuwan dadka ugu neceba. xaqiiq ahaan dadka waa kuwan ugu necebahay, waayo waxaan u tirinayaa dhibo badan oo deegaanadan SSC gaadhay inay hormuud yihiin. kuwa beenta fidiya, xumaanta fidiya, dadka isku dira wey, dabcay, isimacay, balaacay, waxaasoo dhan dadka ku shaqaysta wey. sidaa awgeed waan necebahay website-ka iyo waxa haystaba waan necebahay. hase yeeshee dee ma aha qofku inuu wax walba qori dable iyo qiiqiisa waa isku tuura. arrimuhu maaha. waxa weeyaan maanta waan ammaanaya, maanta bogaadin iyo ammaan baan usoo jeedinaya ninka ku saxeexan diraasadan aan hadda ku xusay maaragtay cinwaanka. ninka ku saxeexan runtii waan hambalyaynayaa, waan bogaadinayaa, waxaana ku dhiirigelinayaa inuu sii dhammaystiro. diraasadu aad bay u fiican tahay, aad boqolkiiba boqol aad bay u fiican tahay. hase yeeshee waxaway anigu diraasad ma samayn caynkaas oo kale ah. arrimaha uu sheegay dhinaca sanaag marar baan ka hadlay, dhowr goor baan ka hadlay. waxyaabaha qaarkood waxyaabahaana ka hadlaynin waa jiraan. hase yeeshee isagu diraasad kaamila, isaga iyo intii kala shaqaysayba dabcan wax keligiis ku ahaa maaha, diraasad lagala shaqeeyey. aad bay ugu mahadsan yihiin. waxayna tahay diraasadda tanu anigu waxaan dhiirigelinayaa in laga qayb qaato oo aan ninka shaksiyaddiisa loo eegin. waayo waxa weeyaan ninkaas diraasaddaa sameeyey hadduu maanta aniga u arki lahaa mid taas oo kale aan sameeya, waxaan shaki ku jirin inuu tuuri lahaa, inuu ka shaqayn lahaa sidii aan ciibo u aragteen soomaad kale. laakiin anigu samayn maayo, waayo wax inuu wada anfacayo, dhammaanteen inuu wada anfacayo. qofka biniaadanka waxa weeya waxa ku anfacaya waa inaad qaadata. diraasaduna wayna wada anfacaysaa. waxayna jawaab u tahay kuwa boodboodaya ee marba le shirar iyo somaliland baan laga gelayna. somaliland lama diidana in shir laga galo, laakiin maxaa lagala gala? waxaa ugu horeeya ee lagala hadlaa somaliland siyaasadii ha dambayso. somaliland waxa lagala hadlaa maanta sidaa uu idiin sheegay dhulka intaa leeg baa wax badan oo dhiman baa jira. yani ma dhamaystirna daraasad. waxaan ku boorinayaa ninkaa inuu dadaalkuu sameeyey si laba shabaaro oo dib u dhammaystiro. dadkana waxaan ku boorinayaa in allaale iyo ninkii xogogaala ee haya arrimaha inay ninkaa ku taageeraan oo ay maaragtay kala qayb qaataan oo si diraasad dhammaystiran oo mustaqbalka noqota ta la hor dhigo. haddiiba nimanka kan wax wada hadal la yeelanayo, kaasaa ka horeeya siyaasad iyo wax qaybsi iyo sheekada baranayda. horta waxa ka siyaasadda ha dambayso, waxaa ka horeysa dhulkii baa la haystaa. runtii dhulka uma wada warhayo anigu oo dee ma wada aqaanin dhulka, laakiin dhinacan sanaag arrimahan uu ka qoray wax badan baa saxa. waxyaaba dhammaystir u baahayna way jiraan. waxyaaba matalan in la hagaajiyo maogtahay laftiga magaca laftigiisu waxa weeye dee waa sida uu ahaa haddaan u qorin kule waa waxbaa khaldamay. matalan waxyaaba badan sida qabka magaca uu qoray baa qaldan. matalan sida shida leh oo kale, siidha leh iyo moysiida leh iyo waxaasuu qoray. laakiin wax toga waxaa la yihahdaa shida leh. marka arrimaha caynkaas in la yara toosiyo ayay u baahan tahay. wax badan oo aanu sheegin waa jira. matalan ninkaas ma uu sheegin matalan degmada Ceerigaabo dawladdu waxay ku lahayd dhul aad u fara badan bay ku lahayd. dhammaan dhulkii beel baa ku haysatay oo maanta haysata. waxaanu sheegin
deegaanada la yidhaahdo caduur caari mire haddii hurgufato dhulkaas oo dhan dad baa degi jira oo runtii dadka beesha isaa ka soo jeeda ayaa majoritiga ahaa laakiin dad baa la degi jiray oo rasmi ahaa dadkii maanta ma degaan gaaya ma degi karaan dhulkoodii ma degi karaan dhulkoodii ay hantida ulahayn ma degi karaan kuwanana way sii socdaan oo kuwan waxay dhaafeen iskaba dhaafeen sanaaga reer sool bay u galeen marka dhulka la aasaastay ee uu sheegay waxa jira hadda la iska samaystay tuulooyin iyo deegaaneed dad ay leeyihiin dhexdooda laga samaystay waxaana wax suurageliyay dee ninka ciidan buu haystaa awood buu haystaa lama midaati waxaa kaloo jira allahuma salli calaa maxamed saasaan deegaanadii wada maqayin matalan markan uu leeyahay shidalehe marka waxyaabaha dee si qaldan aad u yara dhigtid qaarkeed waa yare waxay wa qaldamaya sida shidale wuxuu yidhi shidale markii la siiyey qolada baa dowladdii dhexaad bixisay oo halkaas oo adigu waka markaasaa dhulbaantina waxa la siiyey dhaabeeda يعني arrintaas waxaad moodaa in tacwiid la siiyey oo loo magdhabay dhulbaante yani shidale wixii lagaga qaaday in loo magdhabay oo dhaabeeda lagu siiyey dhaabeedana waa deegaan dhulbaante shidalehena deegaan dhulbaante looma magdhabin oo magdhabo maaha arrintu kanuna waa maqan yahay kanuna markii dambe uu raacay waxaa jirta mashruucan madare dhowr madare waa mashruuc ballaaran uu ka ballaadhay caargaab uu kusoo dhowdhowyahay marka mashruucan waa mashruuc qalbigii reerku uu degi jiray dhulbaante buu ku dhacay runtii dowladdii dhexe baa bixisay dowladdii dhexena dayaan la odhanaya waxaa bixiyay deegaankan nimankii sidaa uu sheegaya cadda muuse ayaa ahaa barasaabka gobolka laakiin ninka bixiyay nin reer cergaaba ah oo dadka s s c dhulbaanta naalaye axmeda cali naalaye ayuu ahaa soo marka ninkaasu nin xun muu ahayn allah u naxariisto wuu dhintay maanta allah u naxariisto dee waxaa dusha kaga imanaya waxaweyaan cadde oo kale iyo wax laga soo dhamaysanaya isagu inaan dhulka kala aqoonna uu ahaa dee hoostaa loo gelinaya marka dhulka badankiisa isagaa wasaaradda beeraha ka wakiilaha markaa isagaa haystay isagaa bixiyey dhulka iyadoo aan la ogeyn baa dhulkii la bixiyey dadkiina ciidamaa loo keeno la yidhi guura taa madare buur madare dee dad badan waxay soo joogtaa ilaa dhaxamo oo magaalada afaafkeeda ah waxay xagga ka jirtaa masagan bay gaadhaysaa baashay oo dhan baa maqan dumar guugudshe laasqacable dhulkaas oo dhan baa maqan mashruucan markii la bixiyay dadku dee waa qayriyey dadkiina xoog lagaga raray waa la qayriyey ashkataa socotay oo ilaa muqdishaa la iskula maqnaa iyadoo ashkatadii socoto bay dowladdii dhacday berigaa waxaa taraxay qof baa taraxay oo lagu qalday oo moogtahay qorya ogeyslabaa iyo qorya warsageliya iyo qorya naaliya axmed iyo xankaas baa adigu ku jirjireen neenka laakiin wixii hadda ma jiraan wixii waxa weeyaan reer bay isugu hadhay somaa kale waana mashruuc qalbigii waddanka aan la wada deganaan cergaaba iyo waa la kala gooyey reerka lama wada deganaan karo markay sidaa ay tahay dee heshiisma dhici karo arrimaha kan iyo kuwan kale ee hadda la deegaamaystay iyo kuwa intaaba haddaan wax laga qaban wax soo karan marka anigu aan ogaadinaya ninka aad baan u ogaadinayaa waxaana jira dadka s s c dhibaatada waxa weeye iyagu unbay suu muuqda haddaba daraasadaas oo daraasad aada u qiimo badan in yaroo weebka ay saaxiib yihiin maaha isaga kuma aan arag wad kale oo qaatay maxaad u qaadan weyy kuwa baa jira guryahoodii laga hadlayo aan qaadan marka waxa weeyaan waxa caynkaasi arrintan oo kale cidina ma laha waa wax inoo wada dana ha ka muuqato website hadaad leedahay webkaaga ha ka muuqato oo dhammaan in la wada qaato oo la fidiyo arrinta caynkaas oo kale ah ayaa wanaagsan ninkaana mar labaad waanu mahadcelinayaa waxay jiraan oo kale jireen laakiin waa arrintaa waanu mahadcelinayaa waxaana ku dhiirigelinayaa inuu arrintaa dhammaystiro oo magacyada la saxo waxyaabaha dhiman ee ka dhiman daraasadana la dhammaystiro matalan arrimahan dadka dhalcado lagu laayay
runtii warbixin murugale bay leeyihiin oo maaragtay aanu kusoo bandhigin meesha. warbixin aad u murugale bay leeyihiin. waxaa fiican dadka ay khusayso inuu kala tashado, kuwa ogina inay maaragtay ay dadka ay ku taageeraan oo ay iyagu doontaan oo warbixintaa si loogu qoro ay maaragtay u sheegaan sheekada ayaa jirta. marka waxaan jecelahay in arrintaa lagala qayb galo, waana dhiiri gelinayaa. waxayna tahay dadkan sii rabaqle horta nina waxba qaadi maayo, nin kasta oo tagaa wallahi isaga iska tigi ay shacab kasoo horjeeda baa meesha jira, waxba qaadi maayo. laakiin ninka sharaf doonaya oo dhulbahanti sharaf doonaya waxaa weeya dadka isaaqooyna suuban nahay, daris wanaag iyo walaalnimayna ka dhaxaysa, ahalnimayna ka dhaxaysa. laakiin sidii gacalkana wax isu siiya, si caadogana wax xisaabtan dhulkayga hayganka. wadahadal kasta oo dhaca lagama hadli karo siyaasad iyo wax kale toonna ilaa arrinta dhulka. taas weeyaan ku warinaynaa istimada iyo nin kasta oo maaragta arrimaha ku shaqo leh. nimanka siyaasiyiinta iyagu kursin bay doonayaan, waxaan oo dhan dan kama yaan la isku hadlay. taas waa ta labaad. waxaan mudaharaadkii shalay ka dhacay laascaanood, waxaan u tacsiideynaya dadkii halkaa ku dhintay sida xabdarada loo dilay ayaan tacsiideynayaa. dadkana ilaahay ha u naxariisto, intii dhaawactay allah ha u bogadhayo. dadkana waan bogaadinayaa in wax la iska celiyo. marka arrimahaas oo kale ku yimaadaan iska celi. diiwaangelintii markii la waday baan rabay inay saas oo kale u dhacdo. meesha laydin wadaa meel sahlan maaha. isku tiirsanaada. idinku aan cidna gardaraysa wax iska bari. deegaankiina waa laydinku yihin dad baa si xaqdarre ah laysaga laayay. marka isdifaac. taana kusoo gebagabeynaya waxay tahay meeshii waxay leedahay waxa deegaanadii waxaa ku tartamaya somaliland iyo maamul aan jirin oo la yado khaatumo ayaa ku tartamaya. waxaa loo baahan yahay cid dhexdhexaad oo qof soo saddex ayaa loo baahan yahay, koox saddexaysaa loo baahan yahay oo deegaankii ka samaysan. adduunka kuwan u qaadanaya. marka waxaa leeyahay dadka arrimaha quseeya war isla yaaba oo sameeya wax hoggaan oo ay dadku raacaan. dadkii meel ay ku kacaan bay leeyihiin. marka labadii markay kala doortaan dee waa somaliland iyo khaatumo oo aan iyadana khayr u wadin oo somaliland ka xun dee iyada iska raacayaan. marka war sameeya wax dhexdhexaada oo maaragtay dee dadka ay kaga kaaftoomaan. balaayatan 5 sano bay haddeer dhibaatada ayna ku wadeen. afrikiina waa kuwa maanta inoola soo istigay waqooyi baa loo xisaabtamaya. qadiyadii waqooyi baan doonayna waqooyi baan doonaynaa xaqiisa bay maanta inoola soo shirtageen. war kuwa ayaynaan isku hadlayn. maydaanka ha yimaadeen dadka hormoodu noqdo oo maaragtay dadka la raaci karo ha yimaadeen. koox saddexaad baynu u baahannahay. meesha waxay noqotay labada qolaa ku kor tartarmayaan meesha. dadkii kale waan ogahay kumanaan baa diidan waxooda, haddana cid lama hayo. intaasaan kusoo gebagabeynayaa. ninka diraasada sameeyena waan u mahadnaqayaa. anigu web yar sayid yar baan iska leeyahay, webkayga ma gelin karo, laakiin waxaan kula talinaya dhammaan websaydada deegaanadaas laga leeyahay inay qaataan diraasada inay qaataan. oo isagana sidaan soo xusay waxaan kula talinayaa inuu dhammaystiro, ayna taas inoo noqoto waxaynu berito sal u ah wadahadal kasta oo aynu gelayno. sal inay u ahaato taasoo la xalilo maaha cid wax kale inaan laga wada hadli karin. خير بين دي فتينية. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.